Assalaamu calaykum. Waxaan isla eegaynaa aas-aaskii jacaylka Soomaalida iyo taariikhdiisii wax ka mid ah. Haddaba waa cilmi baadhari waxa uu ku dhashay meel u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera waqti ku beegan ka hor 80 sano ilaa 90 sano ka hor. Waxaanu Berbera u yimi si uu uga shaqaysto, laakiin waxa uu ka shaqo bilaabay moofo yar oo ku taala Berbera oo ah moofooyinkii ugu horreeyay. Halkaas uu kala soo bixi jiray wuxuu cuno ama wuxuu ku noolaado. subaxyada ka mid ah waxa uu timi gabadh la dhaho Hodan. Haddaba Hodan waxa ay doonaysaa roodhi si ay uga gadato. Haddaba Hodan Cabdilla Walaal waxa ay u timi moofada si ay uga iibsato roodhi ama ay uga gadato. Dabeedna markiiba waxa ka helay cilmi baadhari oo markiiba jeclaaday. Haddaba habeenada ka mid ah ayaa isaga iyo asxaabtiisu ay aadeen xaflad. Dabeedna waxa timi Hodan. Dabeedna waa uu u sheegtay, laakiinse waxay ku tiri hadeer uma jeedo, way eedadii baan la noolahay, eedadiina ma jecla qofan laysiin inaan guursado. Haddaba cilmi baadhari markaas loogu jawaabay isna kama helin hadalka, way hadal wanaagsan ayuu ka filayay. Haddaba cilmi waxa ogaaday habli heer Berbera waxay ku dhaheen cilmiyo waxa iga soo habla mid ka dooro ilantaana ka samir. Isna waxa uu ugu jawaabay gabay macnihiisu yahay laydinka dhaxli maayo inaan Hodan oo kala hablahaasi talo hadeer ma nool yihiin. Isla maalin kale ay gabadh heer Berbera ah isugu ballanqaysay qada sharaf baadhari iyo Hodan. Dabeedna baadhari waxa uu yiri intay waqtigii gaarayso yar seexo si hurdadii waa la tagtay. Waxa uu soo kacay waqti qadada iyadoo dhaaftay. Inta kadib cilmi baadhari waa uu garaway meel u dhaqaaqo way waqtigii bay dhaaftay. Hore waxa la yiri ninkii Siciid buu dhalay. Halkii waa uu ka qaaday hadal taataca oo leh harka galay hurdada way xuntay. Hohay maxay seexshay bal inaan habaar qabo maxaa Hodan i weydaarshay, yacni manjaanisa ka faa'iideysto man goobta joogo. Way inta waxay isugu ballamay inay jacaylkooda u sheegtaan oo ay goobta isugu yimaadaan. Haddaba waqtigaas waxa uu ahaa waqti aan jacaylkaba la aqoon oo jacayl muxuu yahay qofka ka sheekeeya aad iyo aad loo caayo oo la eriyado loo yaqaano qof hal wada. Inta kadib baadhari isagoo cadeynay jacaylku inuu jiro waxa uu yiri caashiqa haween waa hore caadil soo rogay sayidkii cirshiga fuula iyo caliba soo gaadh cidla lagama beermeen dadko coodi waaxida waxa cayn looga dhigay hees cajabiyaan. Yacni dadku markay kala noqdaan way iskuursanayaan, way tarmayaan, wayna farabadanayaan. Marka halka wax tan garanaysa Soomaalidu 90 sano ka hor iyo 80 sano ka hor inay jacaylka wax badan ka aqoon way ninka waa tala erginayay ee lagu cayrsanayay jacaylku ma jiro iyo maxaad ka hadlaysaa. Haddaba baadhari waxa uu yimi Burco isagoo isla bal jacaylkaas inuu ka doobo oo uu ka dago. Haddaba bariya uu ka tagay jacaylkii, laakiin markuu ku noqday Berbera isla sidiisii ayaa ku noqday. markaas dambaysana waa uu ka sii darayay. Marka waxa dhiin karna ninka baadhari waa ninka qura Soomaalida jacaylka baray ee soo bandhigay. Way ninba waxa laga hayay warbalwadaada soo bandhigo, yacni waxa hayso dadka horkeen oo bar. Haddaba Hodan waxa loogu diiday cilmi baadhari sabab la xiriirta hanti yaraantiisa. Way waqtigii hore in hanti yar inta lama siin jirin waxa la oran jiray inta waan ku soo tabacnay waqti baa naga soo baxay. Haddaba inta kadib cilmi baadhari heerahooda ama odayaashooda waxa ay sameeyeen inay u guuriyaan gabadh cad oo ka kabta ama ka daweysa Hodan. laakiin ninkan muu ahayn shalmad raaci waxa uu ahaa nin jacayl haye waxba kama tarin. Intii kadibna gabadhii carabta ahayd waa ay suran way kala tageen ilaa waa nin meel kale ku maqane. Haddaba inta kadib cilmi waa uu ka soo darayay maalinta ka dambaysa sanadka ka dambeeya waa jacaylka ayaa ku sii farabadanayay. Gabadhiina waa la guursaday oo heer lacag leh ayaa lagu daray ilaa uu cilmi markii dambe uu ka sii daray xitaa uu dhinac isu rogi waayay oo lagaba quustay. Haddaba cilmi waqti dheer kadib oo jacayl rafaadiyay waa uu geeriyoday oo tii Allah u timi. Haddaba ma dhihin karna cilmi waxa dilay jacayl, waayo inagu ma aaminsanin Soomaali ahaan waxa jacaylka la yiraahdo ee waxa Hindida ayaa loogu yimaadaa. Waayo jacaylka iyo quruxda waa waxyaabo aan la isku waafaqsanaba inay jiraan iyo inaanay jirin. Mana oran karno way jiraan oo si cad ma sheegi karno, laakiin jacayl waxba ka jira waxna uu ka jira si dadban baan u jira wadooyin baana loo maraa. Laakiin inagu Soomaali ahaan waxaan u adeegsanaa wado khaldan. Waxa laga yaabaa inaad maqal jirtay berigii hore heeso ama gabayo ninkaas laga hadlayo baadhari wixii dilay ama sabab wixii helay bunduqu isaaro uu igu ballaadhay. Yacni baadhari jacayl baa dilay anna jacaylka ahaya. war haddaba jacaylku waa uu jira marka laga hadlayo diinta Islaamka dhexdeeda. waayo Quraanka waa lagu sheegay oo la yiri waa mawado iyo galgacayl iyo raxmad, yacni waa isu naxariiso. laakiin ma aha wax afka qura laga dhawaaqo inta qurana kuma koobna. haddaba waa barnaamijka like saar subscribe ku dhufo share na si waxaad ka aaminsantahay jacaylkana nala wadaag. wassalaamu calaykum.